برنامج كان وصف فيه كذا برنامج كان موضوع دير سوى دي إلا قربة إلا أدي صبا إلا جوزي برنامج كان أنا كدالين هذه هم بوسو تاجنا أنا جو مكملة خصوصا قدوميها مالي يرادا جاني عبد الوهاب ويلكم sida anshaxa iyo nidaamka ay u fadhiyaan waxaa loo ilaaliyo sida loo fadhiyo waqtigu nugayda waan garanaynaa meesha way kulushahay waqtiguna wuu yar yahay annagoo waqtiga waan soo koobi doonaa insha allahu tacaala haddii allah awoodda la ogolaado sida quruxda badan ee u fadhiya walaalayaal anshaxana inoo ilaaliya nidaamkana inoo ilaaliya wajilahay meesha waan garanaynaa way kulushahay waqtina waan goobaynaa gudoomiyahana waxaan siin doonaa muddo yar oo 5 daqiiqo haddii allah awoodda la ogolaado assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة waxaan marka koobaad u mahadnaqayaa ilaahayga weyn ee nagu kulmiyey goobtan maanta lagu xaalmarinayo walaalaheen axmed cabdalle ilaahaygaasaan mahadda koobaad siinayaa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa beesha maxamed cabdalle ee qabatay xalfadan ballaadhan ee lagu xaalmarinayo ama lagu bogsiinayo walaalaheen barnaamijkan isdhexgalka guurka iyo mataqaanaa isi dardargelinta ayaan u mahadnaqayaa markaan u soo leexdo ujeeddada iyo sababta laga leeyahay mataqaanaa shirkan ama xalfadan ballaadhan marka koowaad waxaa weeye laba qodob qodobka koowaad waxaa weeyaan in horta dhammaan beesha axmed cabdalle iyo dhammaan xaafadan horta 7 ilaa 6 ilaa 8 dadka ku nool si buuxda ay ugu baraarugaan barnaamijkan dhammaan beelaha tulumagee ka soo qaybgalayna ay ogaadaan sida cad ee barnaamijkan meel looga istaagay ujeeddadaas wayna soo hirgashay maantana waxay noqotay mid lagu soo gabagabeeyey beesha maxamed cabdalle si ballaadhan oo aad moodayn wejiyadii beelaha tulamuge iyo dadka dega magaalada godayba ay ka muuqdaan alxamdulilah waxaad moodaa inay tahay mid hirgashay sida loo fadhiyay iyo sida loo arka markii la eega wejiyada la dhehdo ujeeddada labaadna waxaa weeyaan in xaalmarintii oo dhaba oon af ahayn qalbi iyo mataqaanaa ujeeddo dhaba la arko gabdho maxamed cabdalle ah oo lagu bixinayo ama lagu meherinayo goobta sida aad arkayseenna suldaankii u horreeyey iyo amakaarigii beesha ayba bixiyeen lana ballan qaaday dhammaan dhudaha ay ka kooban yihiin ee 7 maxamed cabdalle in si cad ay u bixin doonaan gabdho haddaan nahay beesha tulamuge dhallinyaradooda iyo axmed cabdalle salaadiinta intubana ay ka guddoomi doonaan ayaa ujeeddada looga dan leeyahay ay tahay runtiina waaba la arkaayo ujeeddada waxaad moodaa inay horeyna u soo hirgashay maantana ay tahay mid lagu soo gabagabaynayo sidaa daraaddeed alxamdulilah way hirgashay si dhaba bay u hirgashay fikir weyn iyo ujeeddo weyn iyo maskax badan baa la soo geliyey barnaamijkan runtiina laysma lahayn sidan buu u hirgeli karaa laakiin waxaa alxamdulilaah markay dhallinyaradu arrintan qaadatay in salaadiintii beesha tulamuge 100% ugaasku ugu horreeyo salaadiintu ay si dhaba u qaateen odayaasha beesha tulamugena si aan kala hadh lahayn ay arrintan u qaateen sababtoo ah dhallinyaro waxba ma wadi karto haddii aynan odayaashu salaadiinta iyo ugaasku arrintan ayna qaadanin walaalahan axmed cabdallena ay raalli ku noqdeen sida walaalnimada leh ee beelaha tulamuge iyo dadka magaalada la degaba ay barnaamijkan u soo dhoweeyeen u qaateen iyagana waan uga mahadnaqaynaa raalli ahaanshaha ay na siiyeen iyagana aad baan uga mahadnaqaynaa intaa markaan kaga soo gudbo ujeeddada iyo danta laga leeyahay barnaamijkan hirgalay waa barnaamij hirgalay runtii markiisaa loo eego hadday u taagan yihiin salaadiinta iyo ugaaskuna already de barnaamijkan meel mataqaanaayay uu ka dheeliyi doonaba ma leh sababtoo hadday madaxa waxaa la yidhi guri waxaa laga galaa baa la yidhi iridkaa laga galaa madaxii beelaha tulamuge
haddii gabdhahoodii lagu meheriyey lagu guuriyey dee meel ka istaagi karta iyo meel diidi karta iyo meel hadal ka soo celin kartaba ma leh sidaa darteed waxaan odhan karraa barnaamijka 99% wuu hirgalay baan odhan karraa marka intaa markaan ujeedada kaga soo laabto haddaan wax yar faahfaahiyo barnaamijkan meeshu ka soo bilowday iyo dhalinyaradu siday u qaadatay barnaamijkan dibaddu ka soo bilowday waxaa qaatay dhalinyarada Tulamuge allaha khayr ha siiyo aad sabab joogta way soo dhaadhiciyeen dhalinyarada Tulamuge ee magaalada Goday bay ku soo wareejiyeen maadaama tahay xuduntii iyo meesha la raba in laga fuliyo barnaamijka dhalinyarada lagu soo wareejiyay dhalinyaradu guntiga iska xidhay salaadiintooda si dhaba geedkii Tulamuge ugu wareejiyay haddii aynan ujeedada u weyn iyo mataqaanaa aynan siinin salaadiintu qabta hawshaas wixii idinka hor imaada ay dhibaataan annaga u taagan haddaynan dhihinna nooma hirgasheen runtii salaadiinta waa looga mahadnaqaynaa ugaasku arrintaa salaadiintu ku wareejiyey salaadiintu dhalinyarada ku wareejisay saa markay ahayd dhalinyarada beesha Tulamuge inta dhawood ay ka kooban yihiin min 2 xubnood baan ka keennay guddi baan u dhisnay 2 guddi guddiga maamulaya meesha iyo guddiga guurka iyo qabanqaabada ayaan ka samaynay guddigaas guurkana wuu jiraa waa 3 xubnood guddiga howlwadeennadana waa 7 xubnood sidaa daraadeed guddiga howlihiisa uu soo qabtay runtii in la faahfaahiyo uma sii baahno xubno kasta oo qabiil ka mida xalfad la mida iyo dhaadhicin la miduu soo sameeyey runtiina taadee lama rababa in la faahfaahiyo waan u soo wada joognay waa laga soo khudbeeyey waa laga soo hilibeeyey waa la wada fadhiyey gabdhaha lagu